nin ku nool mid ka mid a dalalka ku yaala caalamka ayaa intii uu jiray xanuunka coronavirus wuxuu noqday ninka ugu talaalka badnaa intii laga talaalay xanuunka koronaha. waa nin talaalka coronavirus u qaatay sida biyo oo kale, shakina ku abuuray dhaqaatiirtii ku hoolaneed talaalka dadka. imise jeer ayaa ninkan aan kaaga sheekeynaya la talaalay, halis nuucee ah ayuuse galay, bal aan si degan kuugu sharxo. intii adduunka uu ka jiray xanuunkii saameynta lahaa malaayiinta qofna ay ku geeriyoodeen ee COVID-19, waxaa jirtay in la soo saaray talaal loogu talagalay xanuunka coronavirus si looga baaqsado dhibaatada ba'an uu bulshada ku hayay waqtigaasi. talaalkaas qofkii mar ayaa la siinayay, balse nin ku noolaa dalka Jarmalka, gaar ahaan bariga dalkaasi, uu sawirkiisa iyo magaciisaba la qariyay sababo la xiriira in shuruucaha dalkaasi aysan ogoleen in qof bukaan ah magaciisa iyo sawirkiisaba la faafiyo, ayaa waxa uu noqday ninka keliya ee talaalka ugu badan qaatay. inta jeer ee la talaalayna waa mid ka tiro badan dadka kale inta la talaalay. ninkan aan kaaga sheekeynayo waxaa la talaalay 90 jeer oo laga talaalay coronavirus. hal cudur oo keliya ayaa waxaa laga talaalay 90 jeer. layaab iyo fajac ayayna ku noqotay dhaqaatiirtii. malaha ninkan maalin kasta uu istalaali jiray, maadaama ku dhowaad 90 jeer la talaalay. cid ogeyd oo dhakhtar iyo qof kalena ah ma aysan jirin. waxa uu fududeeyey ninkan in maalin kasta istalaalo ayaa ahayd in warqadaha caddeynaya in la talaalay uu guriga ugu soo tegi jiray. balse booliska dalka Jarmalka ayaa ninkan ku qabtay xarun weyn oo ku taala gudaha dalka Jarmalka. xaruntaas oo ahayd xarun dadka lagu talaalo. markii 19 ayuuna doonayay in la talaalo. marka la qabanayay ninkan wuxuu doonayay in la talaalo, balse waa la fahmay. waxaana la ogaaday in marar badan ninkan horey loo talaalay. booliska ayaana gacanta ku dhigay ninkii, waxaana diideen in ay shaaciyaan magaciisa si la mid ah inay baahiyaan sawirkiisa. waxaana ninkaas la sheegay inuu ahaa ninka keliya ee qaatay talaalka ugu badan oo cid ka badan ama la mid ah inta uu qaatay talaalka koronahana ma jiraan dhammaan wadamada caalamka ku yaala. 90 jeer in la talaala hal qof, weliba hal cudur laga talaalana ma aysan dhicin. coronavirus wuxuu dunida ku reebay waxyaabo aan la mahdin. wuxuu dunidu ku soo kordhiyey waxyaabo aan la jeclaysan, sida in salaanta la iska qaadi waayo, si jamac ah loo dukado goobaha qaar, in la kala fogaado shaqooyinka hagad ay galaan, iyo in waxyaabo aad u fara badan oo xanuunkaas uu reebay dunida saameyn ku yeeshay. COVID-19 wuxuu sidoo kale faqri ka dhigay kambaniyo waaweyn, shakhsiyaad iyo xarumo ganacsi. wuxuuna sidoo kale hakad geliyey muddo goobaha waxbarashada dhammaantood. kuwan waa waxyaabihii uu reebay COVID-19. malaayiin qof dad gaaraya ayaana xanuunkan u geeriyooday. haba ugu darnaadaane wadamada ku yaala qaaradda Yurub oo xanuunkan sida daran u saameeyey, inkastoo hadda laga soo kabtay dhibaato weyn oo cudurkan ahna aysan ka jirin daafaha caalamka. muuqaalkii maanta intaan ayaan kusoo koobayaa. tan iyo muuqaalkeena xiga maalinta berri, waa anigoo ah Juula Shaakir oo idinle sidaas iyo ammaane Allah. haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar, waadna ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.